gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ayaa waxa uu goreyn tacsi tiiraanyada u diray dadkii ku geeriyooday roobabkii habeennimadkii xalay ka daayay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland waxa xalayto inoo curtay oo inaga soo raagay roobkii guga marka ugu horeysa Ilaahay baan uga mahadnaqayaa ama aynu uga wada mahadnaqaynaa roobabka guga ay noo curtay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ina siiyo madarkiisa khayr qaba oo aan xoolo iyo dad midna waxba yeelin hadii Ilaahay ka dhigo waxaan tacsiideynayaa dadkii shacbiga reer Somaliland ka mid ahaa roobka ku geeriyooday ama khasaare ka soo gaaray ama hanti khasaare ka soo gaaray inaga ka xun Ilaahay u naxariisto ilaa 12 qof dad ku dhow ku dhintay intaan laagina waa dhaawac inta la sheegay wuxuu baa warka deel laga soo sheegay Hargeysa laakiin meel kale inaan ogeyn waxa laga yaabaa sidoo kale gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro waxa uu xukuumadda Somaliland ku eedeeyay inay ku fashilantay siyaasadii umuraha dibadda ee Somaliland sidoo kale gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka waramay kulamo uu la qaatay qaar ka mid ah safiirada wadamada caalamka runtiina ma jirto siyaasad qaran oo arrimo dibadeed oo xukuumaddan iyo kuwii ka horreeyay midna soo bandhigay laakiin dalka Somaliland waa dal curdin ah oo u baahan maadaama uu doonayo inuu ictiraaf caalami helo inuu la saaxiibo dhammaan dalalka caalamka waxa ka warqabtaan January sanadkii hore inaan tagay Nairobi aan kula kulmay in ka badan 10 safiir waxaana aan kala hadlay waxay ahayd siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha Somaliland iyo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha ixtiraafka ugu dambeyntii gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka hadlay xariga xildhibaan Maxamed Axmed Dakol oo mudane ka tirsan aqalka golaha wakiilada Somaliland oo ay dhawaan ciidamada booliiska ee Somaliland xabsiga u taxaabeen iyo waliba gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sidiiq Dhamo isagana ciidamada ammaanka ee Somaliland xabsiga dhigeen وعلمي محمد عمر المورنشو ورركة تلفزيون كبدعس هرجيسة هدويا إن لما يريك يلاحظوا حرقة مدانة كترسن قالها وكيل هذا الله حري غف كستو موادنا شرعي ودو حركة لكن وين طريق صح الله مرة مدانياش قالها وكيل هذا دستور كأحر ده شرعي وصل يدك أي حسانتي دستور كده شرعي كرهي سريان مليين ما كان واحد عضي إن دعم ضناها قولي جيسة جورها بين ما ولي بيسوي هرده وواحد دم بيجي معها كل شيء المركز رقبتين مركز تاسي واحد جبيسي ودستور شبين وهكذا ولي سعطة كل حد جذبك يكتم الشضة هي حرقة مواطنين وهودن بي مضاني gudoomiye garabka dhalinyarada Maxamed Sidiiq oo isna raay lagu xilay